Assalaamu calaykum. Waxaan ku tusaynaa maanta sida loo rajisgareeyo eTawakkal. Marka ugu horreyso oo aad damacdid inaad eTawakkal furatid, waxa aad tegaysaa shabakadda etawakkal.com. etawakkal.com markii aad tagtid, waa halkaasii weeye etawakkal.com oo kadib waxa ku soo baxaya page-kani. Page-ka markuu ku soo baxo waxaad taabanaysaa halkaasi, waa meeshay ku qoran tahay register. Registration-ka marka waxa weeye laba nooc ah, midna waa qofka caadiga, midna waa kambaniyada shirkadaha loogu talagalay haddii ay doonayaan inay eTawakkal furtaan. Marka maadaama adiga qof caadi aad tahay, marka ugu horreyso waxaad buuxinaysaa magacaaga oo buuxo. waxaa qoraysaa, waxaad noo sheegaysaa adresska markaas aad degan tahay iyo magaalada maaragtay aad ka degan tahay adresska. ka soo qaad waxaad degan tahay magaalada Minneapolis. zip code-kaaga waxa weeye 55454. residency-gaaga waa United States. meesha aad degan tahay, waddanka aad degan tahay waa USA. ka soo qaad gobolka aad degan tahay waa Minnesota. nationality-gaagana waa waxa weeye United States. maadaama aad degan tahay Minnesota, inta badan United States way. waxaad noo sheegaysaa telefonka hooyada, qofka magaca hooyada ayaad noo sheegaysaa. haddii account-ka aad furanaysid, haddii aad wax noqotid, qofkii kuugu dhow ee lala xiriiri lahaa ayaad noo sheegaysaa. markaasayto telefoonka qofkaas aad noo sheegaysaa. telefoonka markii aad qoraysid, fadlan waxaad ka hormarisaa hal, kadibna area code-ka ku xiji. qofka waxa ay soo tihiin waxa weeye hooyada weeye qofkaasayto. documentiga aan kaa codsanayna aad noo soo diraysid waxa uu yahay ayaad noo sheegaysaa, iyo emailkaaga. emailkaagana waad noo sheegaysaa markaasayto. iyo waxa kaloo noo sheegaysaa marka telefonka kaas waa telefonka adiga aad leedahay. marka telefonkaagana waad noo sheegaysaa. marka intaas markaad noo sheegtid, waxaad samaysanaysaa username. username markii aad samaysid, waxaad eegaysaa usernamekaaga inuu jiro iyo in kale ama hore loo qaadanin. halka ayaa kuu soo baxaysa. usernamekaaga waa uu furan yahay oo waad samaysan kartaa halkaasayto. kadib waxaad samaysanaysaa password, oo ah passwordka in uu ka koobnaado sida halkaas ku qoran tahay. halkaas sida ku qoran tahay waa ujeedaa character, hal number iyo hal symbol inuu kugu jiro way. marka waxaan samaysanayaa password cusub. passwordkayga waa kaas. mar labaad ayaan passwordkii qorayaa. markaa intaasayta sameeya kadibna waxaan qorayaa waxa meesha ku qoran si loo hubiyo adiga inaad tahay qof caadi ah oo aadan ahayn mashiin waxaan buuxinayo. kadibna waxaad taabanaysaa inaad waafaqsan tahay heshiiska. heshiiska haddii aad doonaysid inaad akhrisid, halkaas baad taabanaysaa. waxaa kuu soo baxaya markaas heshiiskii oo dhan oo qoran. heshiiska markii aad samaysid, marka waxaad odhanaysaa waa waafaqsanahay. kadibna waxa aad taabanaysaa waxa weeye submit baad taabanaysaa halkaasayto meesha ugu hooseyso. marka waxaa kuu soo baxaya aad baad u mahadsan tahay Tawakkal inaad dalbatay. kadibna waxaan kaa codsanaynaa ee lagu leeyahay si aan u hubino copy passportkaaga iyo ama government ID ayaa laga codsanaya. waxaad ku soo diraysaa marka information@etawakkal. emailkaas baa ku soo diraysaa. fadlan ogow, markii aad dhamaysid oo page-kan aad soo gaartid, adiga ayaan kaa sugaynaa jawaab amase emailna waa kuu soo dhacaysaa oo ah in aad noo soo dirtid maaragtay wixii documenti ah ayaan kaa codsanay. foomka qaybta koowaad waa intaasayto. qaybaha dambena dib ayaan ugu noqon doonaa.